بسم الله الحمد لله وبعد. magacaygu waa Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Xasan Gablax. waxaan rabaa inaan soo sheego in aan ahay musharax u taagan dowladda Soomaaliyeed ee Puntland doorasho soo socota. waxaan halkan taxsi uga dirayaa familkii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ka geeriyooday Marwaxaawo caruurta ilma Cabdullaahi iyo reer Yuusuf Axmed dhamaantood aniga oo si gaar ah u xusahaya ninka mas'uuliyadda weyn hadda saaran tahay Cabdirashiid Shire Yuusuf Axmed. inta ka bacdi waxaan taxsi u dirayaa shacabka reer Puntland oo uu madaxweynuhu yahay mu'assaskii ama founderkii dowladda Soomaaliyeed ee Puntland uu yahay. waxaan kaloo taxsi u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ayadoo uu madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu yahay madaxweynuhu ugu horeeyay ee madaxtooyadii Soomaaliya dib u furay kadib markii uu dhacay dagaalkii ahliga ah oo dhibta badnaa. inta ka bacdi waxaan taxsi u dirayaa dhammaan ummadda halganka jecel oo horumarka jecel oo nabadda jecel oo xornimada jecel baan u dirayaa. wuxuu ahaa halgamaa weyn oo soo halgamay maxaan ku raahdaa inta dhiban oo soo halgamay dhammaan intaas taxsi baan u dirayaa. inta ka bacdi waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu madaxweyne Cabdullaahi u naxariisto oo jannadiisa ka waraabiyo oo dambi dhaaf uu siiyo. intaas baan leeyahay. anigu shakhsiyan waa isku dirayaa maxaa yeelay wuxuu ii ahaa role model aan ku daydo oo geesi ah oo runtii maxaan ku raahdaa aan ka helo in badan oo maaragtay strength ama quwa aan ka helo buu ii ahaa. waana mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.